halkani waa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland oo 5 saacadood u dambeysay uu ka socday dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa kale ee taabacsan mucaaradka diidan furista dastuurka. ugu yaraan 10 qof oo shacab ah oo rayida ayaa ku dhintay dagaalka inta la xaqiijiyay kuwaas oo la geeyay isbitaalka guud iyo isbitaalada gaarka ah ee qaran iyo Shaafici sida inoo xaqiijiyeen ila ka tirsan ilaa 15 qof oo kale ayaa iyana ku dhaawacmay dagaalka. lama oga wali dhinacyada dagaalamay khasaaraha dagaalka ka soo gaaray. dad shacab ah ayaa ka qaxay xaafadaha kooda iyo sidoo kale xaafadaha dhinacan xiga oo wali xalka shishe ee konaha magaalada laga sii maqlayo rasaas sii dhacaysa oo goos ah. waxa xusid mudan in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay isla markaasna isku socodkii gaadiidka iyo dadweynuhu uu si ayar u soo laabanayo. isimada dhaqanka iyo waxgaradka Puntland ee ku kala sugan gobolada kala duwan ayaa soo diraya baaqyo ku baaqaya nabad iyo in la joojiyo xabadda. dagaalka ayaa saaka bilowday kadib markii baarlamaanku u codeeyay furista dastuurka oo muddooyinkii la soo dhaafay ay diidanayeen mucaaradka Puntland gaar ahaan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Nugaal ururada siyaasadda qaarkood iyo dabcan siyaasiyiin kala duwan. hayeeshee xukuumadda madaxweyne Deni ayaa gudbisay furista dastuurka oo doonaysa in xisbiyada siyaasadda oo dastuurka Puntland qoraya inay 3 hadaan laga dhigo 5 xisbi siyaasadeed. baarlamaanku waxay shaaciyeen inay u codeeyeen si rasmi ah in dastuurku u furan yahay. lama oga waxa xiga maalmaha soo socda balse waanta isu soo taraysa ayaa la filayaa in xaaladda ay wax ka bedesho haddii rabbi. dabcan wararkan iyo wararka kale ee soo kordhaba halkan ayaa idin kala socodsiin doona.